dadka muqdisho waa dadka adduunka ugu qalbiga wanaagsan sidoo kale hawada muqdisho waxaa siisan lahaa dhowr milyan oo dollar hawada muqdisho waa hawo caafimaad ah hadaa garanaysid iyo hadaa garanayn hawada muqdisho 4 galabnimo eega muqdisho waa meel xeeb ah weeyaan meel xeeb ah oo sidan u jawi macaan ma jirto xeebaha waxa lagu yaqaanaa waa meel kulul weeyaan meesha xeebta Berbera Djibouti waa meel kulul laguma noolaan karo laakiin muqdisho meelaha kulul qof kasta waxa ku salaamayaa mansabkiisa iyo maqaamkiisaba waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah waxaan doonayaa horta in yar la yara kaftamo wasiirada markii hore berigii hore waxaan ogaan jirnay inay wasiiradu hayaan yani dad waaweyn oo timacad oo bidaar leh laakiin wasiirada sanadkan waa isbedeleen xaaladdu way isbedeshay wasiirada sanadku way qurux badan yihiin way shidan yihiin maasha Allah waxaan leeyahay yaa lagu soo degdegin wasiirada sidoo kale wasiirka wuxuu ka dhawaajiyay inay wasiiradu is habeeyeen wasiiradu is habeeyeen sanadkan أنا لو تركي واسك كفته ما أنت سوي كفته ويان waxaan horta ku maasantiin aad iyo baa maasantiin meesha la igu soo invite gareeyay waxaan leeyahay horta ismalihi waad u qalantaa maslayn meesha la igu soo invite gareeyay dad waaweyn baa jooga meesha maasha Allah halka waxay la joogaa walaalkii weeyaan wax kasta oo aan qabto walaalkii baa ka dambeeya badanaa dadka markay meel soo gaadhaan dadka ka dambeeya ama dadka meesha soo gaarsiiyay lama arko ama lama soo bandhigo marka meel kasta oo aan gaaray waxa soo gaarsiiyay walaalkii weeyaan aad baa maasantiin waxaan soo gudbiyaa dad fara badan waxa laga yaabaa ima garanayaan ama way garanayaan waxaan soo gudbiyaa muuqaalada ama bilicda wadanka quruxda wadanka ayaan soo gudbiyaa social media ayaan ku soo gudbiyaa anigoo u gudbinaya wadamada kale iyo waliba dadka Soomaalida waxa jira dad Soomaali ah oo aan ogeyn wadankan inuu yahay wadanka adduunka ugu quruxda badan wadanka adduunka ugu jawiga wanaagsan wadanka adduunka ugu dadka quruxda badan ugu midabka quruxda badan wadanka adduunka dadka ugu caqliga badan ay joogaan haday tahay siyaasadda ganacsiga technology-ga ay joogaan waxa jira dad badan oo Soomaali ah anigoo wada campaign-ka ama ololada inaan soo gudbiyo wadanka inuu sidan yahay inuu yahay wadanka adduunka ugu badaha quruxda badan wadanka adduunka ugu cuntada macaan ugu kalluunka macaan ugu mooska macaan ugu cambaha macaan ugu khudaarta macaan ugu ciidda wanaagsan marka ciidda wax laga beero dad badan waxa jira dad badan oo aan ogeyn oo Soomaali ah baa jira anoo isla markii hore u gudbi dadka kale adduunka u gudbi ayaa waxaan ogaaday iga soo baxay muuqaaladayda iyo falcelinta ka soo noqonaysa markaan gudbiyo waxyaabahaas oo kale waxaan ogaaday dad Soomaali ah oo xataa wadamadan dhadhow ku nool xataa qurba joogta maaha dadka qurbaha ku dhashay maaha dad waxa jira Kenya jooga oo aan ogeyn wadankan sida uu yahay qiimaha uu leeyahay wadankooda marka waxaan go'aansaday inaan waqtigayga maxay ana horta waxaan qabtaa wadanka China waxaan ku leeyahay ganacsi baan ku leeyahay shirkad baan ku leeyahay la yiraahdo soo iibso shirkadaas oo qof kasta Soomaaliya wax ka soo dalbanayo meel kasta uu joogo loogu geynayo shirkadaas aan ku leeyahay aniga oo ganacsigaygii shaqadaydii wax barashadaydii ku jira ayaa waxa jira inaad daawateen ma garanayo muuqaal baa jira aan soo dhigay social media barahayga bulshada aan soo dhigay muuqaalkaas oo aan leeyahay anoo iska duuduubanaya wadanka China dhexdiisa oo doonina dadkayga tuso wadanka China sidee u horumareen sidee dadka wax u qabsadeen ayaa waxa jira nin Chinese ayaa wuxuu dhahay halkeeba ka timaaday anoo muuqaalka duubay marka kulliba marka wadanka China marka tagtid ama marka ka baxday wadanka qof kasta wuxuu ku weydiinaya halkeeba ka timaaday kadibna mar walba waxaan raadaa Soomaaliya waan ku celceliyaa marka anoo muuqaalka iska duubay marka dadka qaarna waa u jawaaba dadka qaarna ma jawaabo marka anoo muuqaalka iska duubay ayaa ninkii bay guraad halkeeba ka timaaday marka waxaa nin geerashlaab ah wuxuu guraad halkeeba ka timaaday markiiba si automatic loo waxaan ugu celiyay Soomaaliya wuxuu dhahay ma waxa ka timaaday wadankii intuu sida ay yiraahdeen gacanta yani xabada wadankii dadku is dili jireen ay dadku is cuni jireen
marka maalinkaas in badan baa laygu oran jiray laakiin maalinka dareenka dareemay ka duwaneed aad bay uga duwaneed maadaama hay qof damiir leh oo Soomaaliyada maadaama nahay aad baan u xanaaqay maalinkaas 1 week kadib sidoo kale wadanka China waxaan ka aqoonsanahay inaan nahay dad burcad badeeda iyo dad iscuna dad badan oo aan wareysto Soomaaliya waxay sheegeen markaas wareysto waxay sheegeen waxay leeyihiin dadkayga qaar hadii ay wadanka Soomaaliya iska tagaan iyadoo aanay dawladdu dirin haday iska tagaan kuma soo noqon karaan wadanka China waayo baan dhahay waayo qofka Soomaaliya taga muxuu ugu soo noqon waayo wadanka China waxay leeyihiin sababta ugu soo noqon waayo wadanka China waxa weeyaan waxa la yiraahdaa wadanka Soomaaliya qof kasta wuxuu wataa hub guri kastana waxa yaala xabad baa taala marunba aniga horta inta ogahay gurigeyga iyo qof aan garanayo hub wata ma jiro ilaa askarta mooyaane idinka ma garanayo marka waxay dhaheen wadanka Soomaaliya oo dhan qof kasta wuxuu wataa hub guri kasta waxa yaala xabad marka qofka iyaga haduu naga tago edeb daradu ka soo baranaya qofka Chinese ka haduu tago wuxuu soo baranaya dagaalka ayuu soo baranaya saasi ka wadaan marka waan xanaaqay waxaan go'aansaday maalintii sida la igu yiraahday wadankiina oo wadanka la isku cuno 1 week kadib waxaan joogay Muqdisho ka soo degay markii ugu horeysay ana waxaan ahay reer Hargeysa reer Muqdisho meeyi ana waligii Muqdisho arkin markii ugu horeysay waxaan go'aansaday inaan ka soo dego Muqdisho oo aan tuso Muqdisho inay tahay meesha ugu quruxda badan adduunka dadka Muqdisho waa dadka adduunka ugu qalbiga wanaagsan sidoo kale hawada Muqdisho waxa siisan lahaa $2 milyan hawada Muqdisho waa hawo caafimaad hada garanaysid iyo hada garanayno hawada Muqdisho 4 galabnimo eega Muqdisho waa meel xeeb weeyaan meel xeeb oo sidan u jawi macaan ma jirto xeebaha waxa lagu yaqaanaa waa meel kulul weeyaan meesha xeebta Berbera Djibouti waa meel kulul laguma noolaan karo laakiin Muqdisho meelaha kulul halka waa Indian Ocean Muqdisho jawiga Muqdisho lacag badan baa siisan la aniga waliba 4 galabnimo wixii ka dambeeya jawiga Muqdisho lagama shaqeyn cuntada kalluunka cambaha mooska adduunka waxa ugu talagalay inaan ka iibiyo inaan lacag badan ka siiyo adduunka sidoo kale inaan tuso dadka meesha jooga inay haystaan wadankan qaaliga wadanka waa qaali weeyaan qof kastana waxa ku socota fariin wadankaaga qaaliga ilaali oo ilaasho oo adigu ilaasho marka imika waxa wada ololo fara badan anigoo wada ololada bilicda soo gudbinta quruxda wadanka waxaan ogaaday inay dhalinyarta wadanka jooga ay wadanka yara salugsan yihiin marka waxaan go'aansaday campaign ama ololo jeclaysiinta wadanka run ahaan loo jeclaado oo qalbiga laga jeclaado wadanka shayga marka jeclaatidna waad ilaashataa marka shayga in ardayga ama qofka dhalinyarta markuu ogaado wadankiisa inuu yahay wadan qaaliya wuu ilaashanaya wuuna dhisanaya wuuna ku dadaalaya farinta gudbinaya waa intaas ma doonina waqti fara badan qaato aad iyo aad baa